gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Cabdi Daahir Xasan ayaa maanta markii ugu horeysay xadhigga ka jaray xafiis urur cusub oo ay ku bohoobeen dhalinyarada iyo haweenka deegaanka Yuroob ee 18 kiiloomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Ururkan oo lagu magacaabo Sarmaanyo ayaa mas'uuliyiinta ururkani sheegeen in ururkoodu ka shaqayn doono hawlaha kalkaalinta dadka danyarta gaar ahaan dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo horumarinta dhalinyarada. Waxaana ugu horeyn xafladan ballaadhan ee loo sameeyay ku dhawaaqista ururkani Sarmaanyo ka hadlay Xaliimo Bulaale Farax iyo Hodan Axmed Cali oo ka mid ah maamulka ururkani Sarmaan, waxaana ay ku dheeraadeen aasaaska ururkani iyo sababaha xilligani keenay in dibadda loo taago ururkani. Isla markaana waxay sheegeen inuu ururkani sameyntiisu ka dhashay baahida ballaadhan ee haysata dadka degan deegaanka Yuroobe. Isuduwaha wasaaradda dib u dejinta ee gobolka Togdheer Cismaan Cabdi Xayd ayaa isaguna tilmaamay in wasaarad ahaan ay ururkan haweenka iyo dhalinyarada ee Sarmaan, waxaana uu sheegay inay hore u jireen ururo haween ah balse ay baabiyeen khilaafyo baahsan oo soo kala dhex galay. Waxaana uu kula dardaarmay isuduwaha ururkani cusub sida ay u ilaashan lahaayeen midnimada iyo isku xidhnaantooda. Waxaa iyaguna munaasabada walqalka ururkani ka hadlay xiriiryaha ururkani iyo hay'adaha Yuusuf Diriye Farax, xubno ka tirsan waayeelka iyo dhalinyarada Yuroobe, abwaano iyo marti sharaf kale oo badan. Dhammaantoodna waxa ay ka hadleen baahida haysata dadka ku dhaqan deegaanka Yuroobe iyo sidii loogu baahan yahay in urur samafal ah xilligan lagaga dhawaaqo deegaanka Yuroobe. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Cabdi Daahir Xasan oo isaguna munaasabadani ka hadlay ayaa sheegay maamul ahaan ay soo dhaweynayaan in ururka haweenka iyo dhalinyarada Sarmaan. Waxaana gudoomiye ku-xigeenku wax laga xumaado ku tilmaamay in maamulkii degmada Yuroobe aanay ka soo xaadirin goob ay shacabka Yuroobe ku muujinayaan rabitaankooda ku aadan dhanka horumarka. Waxaana gudoomiye ku-xigeenku kula dardaarmay xubnaha ururkani inay ka fogaadaan wax kasta oo keenaya khilaafka. Ugu dambeyntii, deegaanka Yuroobe oo qiyaasa 18 kiiloomitir dhanka bari kaga toosan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa xilligani ka muuqata baahi weyn oo dhinacyo badan taabanaya sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo xaaladda nololeed oo kale. Waxaana dadka deegaankaasi xukuumadda ugu baaqeen inay ka qayb qaadato horumarka magaalada Yuroobe. Waana markii ugu horeysay ee urur noocan oo kale ah oo dhalinyarada deegaanka Yuroobe iyo haweenkuba ay ku bohoobaan lagaga dhawaaqo deegaanka Yuroobe. Cabdirasaaq Faarax Cabdilaahi, shabakada caalamiga ah ee Burco Online, xarunta gobolka Togdheer, Burco.